الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maalmaha yarka ah oo adduunyadan aan joogno waa maalmo yar laakiin qofka ilaahay waafajiyay wax badan oo badan uu sameyn karo. waxaan la gudboon qofka muuminka ah saacadaha uu nool yahay adduunyadan uu joogo inuu ku mashquulo daacada ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo uu badsado acmaasha saalixaadka ah. haddii lagu yidhaahdo berri waa la guurayaa waana la safrayaa safar dheer baana la gelayaa sahaydaada soo diyaarso habeennimo ayaad haabhaabanaysaa laakiin miyaad og tahay saacadaha cimrigaaga ka dhiman oo adduunyadan aad ka guuraysa saacadahaas aad fadhidid oo yarka ah unbaa adugu xukuntaa oo iska leedahay laakiin waxaa kaa dambeeya saacadaha dambe inaad gaaraysid ma ogid kuwii horena waa tageen waxay ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala lagu diiwaan geliyana ma ogid. aynu ku dadaalna acmaasha saalixaadka. haddaba waxaa fiirisaa acmaasha saalixaadka ah fadaa'isha ay leedahay iyo qiimaha ilaahay agtiisa ay ka leedahay. qofku wuxuu ku helayaa nolol wanaagsan adduunyada dhexdeeda uu ku noolaado iyo liibaan aakhire ilaahay agtiisa uu ka liibaano. ilaahay baana qur'aanka kariimka inoogu sheegay man camila صaalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun. qofkii sameeya camal saalixa asagoo iimaan leh labadaas lama kala reebo. aliimaan waalcamal الصaalix ma kala haraan. qofkii labadaas la yimaada adduunyada dhexdeeda waxaan noolaynaynaa nolol wanaagsan ayaan noolaynaynaa baa ilaahay. nolol wanaagsan ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala u ballan qaaday. waxa ugu weyn noloshaa wanaagsanna waxa weeyaan inshiraaxu الصadri wa naciimu اlqalb. qalbigiisu inuu degan yahay oo inshiraax iyo waasicnimo uu haysto waxa ilaahay uu siiye uu qanaaco ku qabo. hadduu wax yar helo ku qanacsan yahay hadduu wax badan helo ilaahay uga shukrinahayo camalkiisii aakhiro laga rabay inuu la yimaadana uu la yimaado. waa nolosha ugu weyn inuu qofku ahaado qof ilaahay ku xihan subxaanahu wa tacaala qof daacada ilaahay ku dhex wareegaya acmaasha uu samaynayo oo dhanna ay tahay acmaal ilaahay raalli gelinaysa subxaanahu wa tacaala. noloshaas baa ilaahay u ballan qaaday. maahan daaro badan maahan dabaqyo badan maahan mataqaanaa xoolo fara badan maahan beero waaweyn. intaa ayagoo haysta ayay habeen iyo maalin seexan la'yihiin dadkii aan iimaanka lahayn. ilaahay qanaacadii intuu ka qaaday hami iyo murug iyo xusni dhiikar baa ku wada dhacay. maxaa yeelay daaco ilaahay baysan haysan. acmaashii saalixada ahayd iyo cibaadadii macaankeedii baynan haysan. qof baa arkaysa halkaas masaajidka soo gelaya go'yiisa yarkaa iska duuduubanaya iska barkanaya oo iska seexanaya wax walwal ah iyo wax walbahaaroo hayaan halkaasuu khuurinaya. kaa xoola yar kaa magac yar kii magaca lahaa oo hantida lahaana waxa weeyaan saaka suu kabaha u gashaday buu u ordahay. maantoo dhan buu ordaya caawa markuu soo dhacana isagoo aadaaraya oo taahaya. ilmihii waa seexdeen haweentii waa seexatay cashadii halkaasaa loogu daboolay. inuu cuno ayaa culays ku noqonaysa. intuu cunayana shaqo kaloo hayaadoo teleefoonno soo dhacaya iyo hawlo soo dhacayuu kala xallinaya. goormee qofkaani nasanaya oo waxaan u haysta ku nasanaya oo cibaadada iyo daacada ilaahay ku gudanaya markii ilaahay qalbigiisa waafajiyo oo ilaahay qalbigiisa uu dareensiiyo meesha ay nimcadu jirto. meesha ay naga jirta ilaahay markuuna dareensiiyo ayaan ogaanaynaa oo nasanaynaa oo raaxaysanayna. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam bal ilaahay agtiisa fiiri waxa yaalla iyo waxaynu ku mashquulayno isku dhibayno
إلهي وحلي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر waxaan u diyaariyay addoommadaasi waa kuwee addoommo dhan maaha licibaadiya asaalixiin weeye addoommada wan wanaagsan oo saalixiinta ah waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at waxaysan il arag walaa udunun samicat dhegna aysan maqlin walaa khatara calaa qalbi bashar bani aadam qalbigiisna aanba ku soo dhicin ba ilaahay diyaariyey oo ilaahay uu kaa rabaa camal yar adduunyadan aad la timaadid oo saalix ah inaa ilaahay uga iibsatid jannada qiimahaas leh oo sidaa u weynin ka badan maalkaaga ku gado maskaxdaada islaamka ugu adeeg lisaankaaga ugu adeeg oo amarka iyo wanaagga amar xumaanta ku reeb cagahaaga ugu soco islaaxa iyo khayrka iyo wanaagga waxa ilaahay uu diyaariyey eeg adduunyada haddaad ku wareegtid meel kastoo aad booqatid waxa indhahaagu ku mabsuudayaan oo yaalla ilaahay agtiisa marka loo eego waxa yaalla wax jira ma ishaadu maxay qabataa waxa ugu qurxoonoo ishaadu ay qabato waxa ugu qaalisan adduunyada dhegtaadu ay maqasho waxa intaa meel fariisatay qalbigaaga ku wareegoo ku soo dhaca intaa markaa isku geysay waxaad ogaataa waxa ilaahay kula raba miskiinkaas adoo ah inay ka weyn yihiin oo ilaahay uu ku diyaariyey iimaan iyo camal saalixana lagugu xiray acmaashan saalixada ah waxaa lagu gaaraa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku jeclaado maxaa ka weyn adigu ilaahay baad jeceshahay laakiin in ilaahay ku jecel yahay ma ka dhalanaysaa waxaa laga yaabaa ilaahay inaad jeceshahay rasuulkana aad jeceshahay waddadii allihii rasuulna aadan haynbaba ilaahay agtiisana lagaa lacnadahay wax jacaylan ilahay agtiisa aysan ku oolin laakiin muhimmaddu waxay tahay in adiga lagu jeclaado ilaahay wuxuu leeyay ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat sayajcalu lahum الraxmaanu wudda kuwa ilaahay rumeeyey acmaal saalixa la yimid labadaasay wada socda ilaahay wuxuu u yeelayaa agtiisa wud jacayl baa ilaahay u yeelaya jacaylkaasi waxa weeyaan addoommada quluubtooda maxabbo ayaa loo dhigaya ilaahay agtiisana waa laga jeclaanaya walidaalika nebigu waa ka yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha idaa axabba cabda naadaa jibriil haddii ilaahay addoon jeclaado dhulka jooga ilaahay jibriil buu u naadiyaa isagaa malaa'igta ugu weyn markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay jibriil isagoo la hadlaya ina allaha yuxibu fulaanan faaxibbah ilaahay hebel buu jeclaaday ee jeclow fayuxibuhu jibriil malaku jibriil baa qofkaa jeclaanaya intaas kuma koobna fayunaadii jibriilu fii ahli الsamaa wax allaaliya waxa samada jooga ayaa dhexdooda looga naadinayaa malaku jibriil baa ka naadinaya ina allaha yuxibu fulaanan faaxibuuh ilaahay wuxuu jecel yahay fulaan hebel baa ilaahay jecel yahda jeclaada fayuxibuhu ahlu الsamaa samadaa laga jeclaado halkaa markii arrintiisa laga soo oggolaaday uma yuudacu lahu اlqabuulu fi اlard dhulka ayaa waxaa loo dhigayaa qabuul baa loo dhigaya qabuulku waxa weeyaan in la aqbalo ducadiisa khayrkiisa wanaaggiisa ayaa dadka quluubtooda loo gelinaya dad baa dhintay 1000 sano ka hor oo aynu maanta u abtirinayno leenahay hebel 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 xadiidkii aynu sheegnana aan leenahay radia allaahu canhu raximahu llah aynu ducaynayno imise masaajid baa maanta jumcada keliya imaamu albukhaari looga ducaynaya ma xooluu ka tegey ma boqor buu ahaa ma madaxweynuu ahaa ma webiyaal buu dilaaciyey ma daaruu isdul saaray imisaa imaamu muslim looga ducaynaya imisaa culummadii cilmiga manaabirta iyo meel walba markii magacooda la soo qaadaa radia allaahu canhu raximahu llahu la leeyahy diinta ilaahay bay u adeegeen
حق الله لقى جعلاضي جعيل بادتك قلوب تود الله دقي إلهي سبحانه وتعالى مقعودي أيو باقي dad waxaa jira ayagoo waa hore dhintay oo lafahoodii baaliyoobeen ilaa yawmina hada dhexdeena ku nool waa muhaddithiintaas ahlu cilmigaas weey dad waxaa jira ayagoo hadda nool oo dhex jooga lamid ah ayagoo dhintay lamid ah wax sheegaya iyo wax xusaya aan la arag haday dhintaan iyo haday nool yihiin isku mid ay tahay bal ka war liiskaasi waa furan yahay إلى هذا وأودا إلهي إنا ويجستين وكوكو كواس شقدي عملك صالحا على الاتماد أعماشا صالحة دعا فضائشة أي لذا هي أواوين وحاكمت درجات كالسرع يلقى وشنط ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات لبدي يسكحر المشد أستقوا إيمان له عمل صالح لي من غفكي ماذا فأولئك لهم الدرجات العلا درجات كالصرع أيدت كاسلي وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم ذاتك الجنة تشوغا كركو ذي وحي إسكتو صيان قولوا القرية كالصرية وذاتك لأي دقيه جنة دي ويتشوغا كالكوكب الدري الغابر في الأفق سيدا حد قهوة كشريرا والسماء تشراه سيدا انت الله اسكو فيري الله اسكو توسو ايا وحا الله اسكو توسيا دد اهل الجنه دد كسر يا هلكا دكن markaas nabigu yiri tafaadul ma baynahum wa waxa u dhaxeeyo qadarka ah oo kala sareeyo weey dadka iyaga kuwana halkaas ay joogan kuwana waxay fiirinayaan sida xidigii ayuu wuxuu u fiirinayaa hebel hebel laga yaabo inay adduunyada markay joogeen isku hooyo isku aaba ahaayeen isku meelna ay degnaayeen labadoodina jannada ay wada galeen laakiin didaalkooda isku mid ahayn didaalkooda ayaan isku mid ahayn markaas ay saxaabadu waxay yiraahdeen ya rasuulallah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum midaasi ma meeshii loogu talagalay anbiyada guryahoodii miya oo cid kale aan looba ogolinaysan gaarahayn markaas uu yiri nabigu maya walladhi nafsi biyadi wa dhaartay nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaahay buu ku dhaartay رجال آمنوا بالله ودل يمد الإيمان والعمل الصالح فضائشة إلا ذا أعماش الصالحة ذا وحاكم ذا إن السبب الطهي قفك إلهي سبحانه وتعالى تنبقي سيرو رافي أحواشي سنة إلهي وهقاتني إلهي سبحانه وتعالى وحو الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات كو إلهي الرميي أعمال صالحة ليمت وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذاتك إيقا إلهي سبحانه وتعالى دنبي قودي ونافي دنبي قودي إلهي ونافي حالة دودي حال كودن إلهي وهاقا جنب أحواشود إلهي واجهه قفك وحو قباي بدن ياي الدنيا أموري سين لو هاجاتيو تيتاهي أولاد تيتاهي عرورتي تيتاهي نولشي تيتاهي عافماتكي حقيقة هليا الإيمان والعمل الصالح أعماش صالحة قيمها إلهي أكتسا أي كالليضها وحاكمت حسنات يرعى قف كل يمات أي الله إلهي الرحمة دي سوينك كده جن حريص دي سوينك كده بل وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحو لي إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة أدون كيغو هدو كشيك كيستو نفتيسا إنه وناك سمعي وحسنة سمعي فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل وحان أقول يا حسنة انتونا عمل فلي بل كور قلبي قاقا وحا كدو آمسي شيء حسنة أو وناكسن إنا السميسد انت هذا كل دقاقين بإلهي كو قريبا فإذا عملها هادو سمايو فعل كدره
فأنا أكتبها له بعشر أمثالها طبعا لا بكيد بان أقريها بإله إليه سبحانه وتعالى. وإذا تحدث عبدي بسيئة هذه حمان نفتي سواء وشاكيس أو قوان صدى دنبك النوع عاصين وسميه فأنا أغفرها له ما لم يعمل وأن أضافيا انتون عمل فلن وقال له عفيني هذا نقول دقاقي فإذا عملها فأنا أكتب له بمثلها هذول لي ما ذو عمل فله وحان أقريا سيئات وكلية نقريا انت إلهك تايب اللون دقيا بل إلهي الرحمة دي سواسع النمديدة يقالي كذا بلاه كل وحان كقاليسا وحويان الأعمال الصالحة عمل كوينو صالح النغضه سيكو أغانيسا لبشر دي أساسية دقيس حفظي أهل كاغا أشيك غير كان أشيك شردي كوباد الإخلاص عمل كان إنه إلهي درتي كايا إنه كاهين بريه بلا وحاسي ساكيش وإنه كاهين دنا الدنيا لقاش شيغو وإنه كاهين مقعي مقالات كو قارتي دي منصب إلهي درتي إنه كايا dadka laaluushka bixiya oo laaluushka maalin walba bixinahay oo hebel uu oranayo aniga igu shuba lacagta iga qaata ma ilaahay dartiid ka tahay waxa bixiya kama wala weydiin maanta qiyaamo riyaa iyo istusus bay u bixinayaan antido in badan oo kamid inay waxaan ilaahay dartii ay ka yihiin dan gaarada kalaay شرطي الله بعد هو أساسي وحويان المتابعة عمل كان يا وقت ضيانا يسا طريقة إلهي أدو دوانس وأجر كقربت نبي محمد مسمي سيدة موسمي سيدة موسمي هذه النبي محمد عمل كان ونصمي وعمل كتابك إلهي السنة النبي كو قطماؤنا أهين وحاد نبركو كاغت شبي وجهدك هبين يمالنا ضب حنيسا وحاد إلهي أقد ديرانيس وهذا إلهي يقول وانا وحانا واقو كو قبري يا ما انت هدادا اسكهو بين مرعادا سؤال لا بنكري وانا كقبك تتكب بدعادا إلهي يقول وانا oo u haysta inay ihsaan iyo wanaag sameeyaan oo ilaahay bidca ugu dhawaanaya ilaahay uga tawakkal ilaahay ha uga tawakkal amal kastaha ku didaaleen inuu kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga waafaqsan yahay ilaahayna ha uga tawakkal